علماء الدين كراعسان طريقة القادرية الربيعية وشيغay in dawladdu ku haysato dhul ay leeyihiin oo ku yaala magaalada Boosaaso gaar ahaan xaafadda Baalade culimada oo maanta warbaahinta kula hadlay Boosaaso ayaa waxa ay sheegeen in bogcadan ay tahay dhulka labaad ee ka degan yihiin magaalada Boosaaso culimada ayaa sheegay in dhulkaasi ay iminka gacanta ku hayaan ciidamada Puntland waxa ay baaq cod dheer u direen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni sida oo kale waxa ay xertu sheegeen in gaadiid ay leeyihiin uu ku jiro saldhigga dhexe culimada oo hadalkooda sii wata ayaa waxa ay sheegeen in marar badan ay la shaqeeyeen dawladda isla markaana arrintani ay tahay wax aysan ka filayn waa kuwan culimada oo diraya baaqa ku socda madaxweyne Deni waxaan halka saxaafadan aanu hadda meesha ku qabanaynaa waxa ay ku salaysan tahay marka hore bogcad xertu ay leedahay oo ku taala meesha la yiraahdo Baalade bogcadda oo aqal ka dhisan yihiin ceelal ka qodan yihiin looguna tala galay bulshada reer Puntland inay wax ku barato oo diinta ay ku bartaan annaguna sida xerta daabigeedu uu yahay wax weeye diinta ayaanu dadka baraa ilaahay baa yiri waltakum minkum ummatu yad'uuna ila alkhayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar hal laga helo ummad idinka kamida ummadda Nabi Maxamed hadaatihiin ummad idinka kamida kuwaas oo ummadaas oo waltakum minkum ummatu yad'uuna ila alkhayr ummad idinka kamida oo dadka khayrka ugu yeera wa ya'muruna bil ma'ruf kana magaranaysa amra hal laga helo marka waxa weeye rasuulkeenu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri nabigu kun caaliman aw muta'alliman aw mu'iinan wala takun raabi'an fatulika ba rasuulku alayhi salaatu wasalaam ahaw mid caalima oo dadka wax bara ama ahaw mid muta'allima oo dadka magaranaysa mid wax baranaya ama mid labada u kaalmaynaya oo diinta ugu kaalmaynaya ahaw wala takun raabi'an kan afraad oo han noqon fatulika ba rasuulku alayhi salaatu wasalaam وفي رواية أخرى رواية كلنا وحي أهيد أو محبا أما متجعله ولا تكون خامسا فتولك كشنات هنقول أفرتا أما شنتا مذون هو مركا حرت دابي جدو حوي وحي سوجرتي تضباط سنة تضباط كاسنة وحوي ذاتك الدين تأيا شيخ محمد ربيع الدين رضي الله عنه ذاتك أي دين تبريي وحنا كبريي دوا دين بلا شاء وأن ذاتك وحل عقل لقى قاضين ummadda Soomaaliyeed ummad badan baa ka aflaxday oo hadda dalka iyo dadkaba dibadiisa ku sugan ilaa yoomana hada sidii baa diinta loo fidiyaa oo waxbarashadeedu ay tahay bilaash guriyuhu waa bilaash cuntadu waa bilaash hurdadu waa bilaash waxa weeye waxa soo dhan waa bilaash oo waxa weeye waa dadka wax loogu tala galay diinta islaamka inay bartaan si bilaashan ay wax ku bartaan waana dhaqankii koobaad ee ugu horeeyay oo Soomaaliya ka hirgalay waxaana ka hirgaliyay Sheekh Maxamed Rabiic radiyallahu anhu muddo 7 sano waa ka socotay ilaa yoomana haadana waa ay ka socotaa marka walaalayaal saxaafadooda iyadana waxay ku salaysan tahay bogcad ku taala Baalade oo xirta Sheekh Rabiic ay leedahay oo kamida bogcadda labaad oo Boosaaso ay xirtu ka degan tahay bogcaddaas wax laga dhisay guriyo wax laga qoday ceelal shaqadiina waa ka socotay muddo dheerna bogcadda xirtu way lahayd muddo badanna waa deganayd ilaa waqtigan hadda xirtu waa degan tahay marka bogcadda oo loogu talagalay waxbarasho diimeed sida bogcadaha kaleeto oo dalka kamida bogcaddaas baa waxa maalin dhaweyto waxa dhacday in ciidamada Puntland oo annagu markaanu nahay xirta rabiiciyada Puntland waa dawladdeedii waa taageersanahay waanu la shaqeynaa iyaguna way nala shaqeeyaan sidaa darteed marka bogcadii ayaa maalin dhaweyto ciidan loo soo diray iyadoo culimadii ay joogto wax ku baranayso qaybina shaqeynayso qaybina magaranaysa waxbarashadii ay ku jirto ayaa bogcadii ciidan yimaadeen ciidamadii ayaa bogcadii shaqadiina way ka joojiyeen qalabkii iyo gaadiidkii iyo waxay lahaayeen waa la soo qaaday culimadii meesha joogtayna saldhigga dhexe ayaa la keenay waxaana loola isticmaalay oo lagu xiray maqsin baa lagu xiray sidii qof maadhara sidiisi oo kale baa loola isticmaalay gaadiidkii meesha lagaga shaqeynayna hadda waqtigan wuxuu ku sugan yahay saldhigga dhexe wax dambiya oo lagu soo xiray mana jirto mana dhicin waana arintii koobaad ee ka dhacda Puntland oo qodobkii koobaad weeye qof gurigiisii iyo meeshiisii jooga inta loogu tago si khasaba looga soo kaxayo hantidiisii iyo gaadiidkiisina lagu soo kaxayo lana keeno bogcadii
dawladdii Puntland anagu aanu la shaqaynay hadday tahay ciidankeedii iyo hadday tahay mas'uuliyadeedii waxaanu maanta ka filaynay iyadoo dawladdeedii ah aanu taageersanahay ku kalsoonahay ilaa iyo madaxweynaha mudane Siciid Cabdilaahi Dani doorashadiisina aanu dadkii u hambaliyay aanu ka mid ahayn maanta ma filayn gaadiidkayagii iyo deegaankayagii iyo buqcadahayagii inta lagu duulo oo ciidamadu ay soo qaadaan saldhigga dhexe ka xiraan culimadiina loola isticmaalo sidii dad maandhariina oo dil geystay oo kale marka saxaafadda iyadu saakaas arrinta ayay ku salaysan tahay xogta Sheekh Rabiicina Soomaaliya 18 gobol meel aanay deganeen ma jiro waxaana laga fidiyaa diinta islaamka mana dhicin buqcad xogtu ay leedahay oo lagu duulo waa tii koobaad weey dhulka uu sheegay caaqil oo deegaan xogtu leedahay oo waqti fiican ay deganayd haddana ay degan tahay shaqo la geliyay ceelal laga qoday barkada laga dhisay guriyo laga dhisay oo loogu talagalay in diinta islaamka laga fidiyo dadka Soomaaliyeed wax lagu baro maxaan ku yiraahdaa halkaas malcamado iyo masaajido iyo macaahid laga dhiso gacantana lagu hayo shaqadina ay socoto ciidanka ay tageen waliba gaar ahaan kuwa Boosaasood culimadii la soo xirxiray kii ugu sareeyay kii ugu hooseeyay gaadiidkii la xirxiray kadibna ninkii ugu weynaayo dariiqadooda ka ahaa markuu tagay sii raggii iyo gaadiidkii soo fiiri isaga naftiisa la xiray oo loola dhaqmay si xoogaa bini'aadanimada ka baxsan arrinta ayaan cabasho ka gudbinaynaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyaga Siciid Cabdilaahi Dani ee sharafta badan iyo madaxda kale iyo mas'uuliyiinta cabashadayada inay markay soo gaadho jawaab ka bixiyaan sidaas ayaan rajaynaynaa anagu culimadaas aanu nahay taariikhda laga sheekeeyay dadkana dib uma geysano inna dhibana ma jeclin annaga oo culimada xarta Soomaaliyeed oo magaalada Boosaaso aan degannahay laba xarumood ayaan ku leenahay oo xaruntan magaalada dhexdeeda iyo xaruntaas ku taala meesha la yiraahdo Reebi labada xarumood oo ilaa barka beerinay in muddo aan middaashay aan muddo ku mashquulsanayn xarunta Reebi waxaanu ka qabanay shaqo aad badan wax badanna qabi ayay naga yihiin marka waxa weeye xaruntaas wixii aanu ka qabanay oo ay ka mid tahay guriyo aanu ka dhisnay ay ka mid tahay ceelal aanu ka qodnay baraago ka dhisan dhir aanu ku beernay waxa weeye meeshaas oo xarun diimeed ah oo aanu degannahay ayaa waxa nagu dhacday arrin aanan ka filanayn dawladdeeda sharafta leh iyada oo ragna la kaga xirxiray maalin weyn ilaa wada beerka been raggii haddii la soo xiray oo la soo qaaday oo saldhigga la keenay erga ahaan ayaan meeshaa u nimi annaga odayaasha dariiqada ah dabadeedna idinkana waa laydin doonayay baa layidhi waa nar ku xiray meeshaas si sharaf dhaca ayaana loola dhaqmay oo aanan ka filanayn dawladdeeda sharafta leh marka cabashadaas oo dhibaatada naloo geystay ah ayaan doonaynaa madaxweynaha sharafta leh mudane Siciid Cabdilaahi Dani inuu wax ka qabto hawshaas oo si wanaagsan oo sharaf badan oo sidii aan filaynay ah inuu wax looga qabto in dhulkaas dariiqadu aan shaqada faraha badan ka qabanay shaqo badan ay qabyo ka tahay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha wixii naga dhiman inuu noo kabo oo noogu daro oo ay ka mid tahay xero weyn oo loo dhiso ardada guriyo loo dhiso oo guryaha xer cilmiga loo dhiso ilaa wada beerka beelin iyo wixii kale oo dee ma garanaysaa qabyaha xerada qabyatir ah dawladda ayaan ka sugaynaa annagu dawladda dheef mooyaane dhib ugama aanu jeedin madaxweynaha iyaga sharafta badan mudane Siciid Cabdilaahi Dani mar labaad mar saddexaad waxaanu ka codsanaynaa inuu wax nagala qabto shaqadaas ma garanaysaa xerada dhulkaas aan muddo fara badanna aanu deganayn shaqana aanu ka qabanay Yacquub Cashe iyo wararka telefishinka Somali News Boosaaso.